bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaan la geeddi afraxoo idinla socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad waddanka TV ku daawan doontaana waxaa ka mid ah waxaan ku heshiinay in madaxweyne farmaajo luuq lagu sii hayo si ra'iisul wasaare Abiy Ahmed loo mooneeyo siyaasi ka shifay arrin lagu warlaa siyaasi muujiyay inuu si wanaagsan u yaqaan sida loo gadgadiyo turubka siyaasadda Soomaaliya Kenya oo ugu dambeyn ogolaatay cadaadis uga yimid dhanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo tilaabo ay qaadayso General Cabdalla oo maalmo ka hor ka digay qaraxyada Muqdisho wasiiradii xukuumaddii Khayre oo la isugu yeeray iyo kulan xasaasi ah oo ka dhacay Muqdisho Puntland miyay ku qasbaysaa madaxweyne farmaajo magacaabidda ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Axmed Madoobe oo ka hadlay weerarkii Hotel Eled ee Muqdisho Maraykanka oo ku horceeboobay golaha ammaanka iyo madaxweyne ruuxaani oo ku jeesjeesay iyo shirkadaha Imaaraadka iyo Israa'iil oo bilaabay iskaashi iyo in ay heshiisyo galaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad waddanka TV ku daawan doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 17 Agoosto 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar waddanka TV oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idiin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan laegtana ha naga hilmaamina aan ku bilaaba marka hore siyaasiga Cabdulqaadir Jirde oo ka mid ah siyaasiyiinta waxgaradka ee Somaliland ayaa ka shifay arrin aan horey loo ogeyn oo ku saabsan booqasho banjartay oo ay madaxweyne farmaajo iyo Abiy Ahmed Hargeysa ay ku tagi lahaayeen Jirde oo sidoo kale ah nin aqoon-yahan ah ayaa sheegay in saacadu markii ay 6:00 ay soo waceen Muuse Biixi kadibna teleefon loogu sheegay in ay soo socdaan waxa uu sheegay in roog casiya calanka Itoobiya la qaaday balse lagu heshiiyey in madaxweyne farmaajo aan la maamuusin oo meel luuq ah lagu sii hayo inta uu salaanta qaadanayo odayaal loo diro markii aad adiga iyo Abiy dhamaysataan u taga ku dheh walaan waan ka xunnahay inaan waqti ku helin Jirde ayaa madaxweyne farmaajo ku eedeynaya inuusan xeerin qadiyadda Djibouti balse waxa uu sheegay inay caadi tahay inaanu isagu xeerin ixtiraamka laga mudan yahay markii gurigiisa loogu tago arrintan ayaa laga garan karaa sida ay maanta u dayacan tahay Soomaalida iyo waliba sida ay Itoobiya ugu guuleysatay istaraatiijiyadii siyaasadeed ee dhuleed ee Soomaaliya ay bari kala ahaan jirtay taasoo halkii ay marka ahayd dal la xifaaltama Itoobiya maanta ah dal isagu xifaaltama balse u kala dheereeya xurmaynta iyo saraysiinta Itoobiya bari dhaweyd wasaaradda dibadda Itoobiya ayaa afcad ku sheegtay in aanu jirin dal ku yaala bariga Afrika oo ku dhaca inuu saldhig ciidan siiyo dal saddexaad oo halis ku ah danaha Itoobiya dabcan la hadli mayso Kenya Uganda Tanzania iyo Eritrea iyo xitaa wala Suudaan oo ku wada yaala bariga Afrika balse waxa ay toos ula hadlaysaa Soomaalida waa ta dhinaca kaleetana marka hore raalli noqo waan ogahay oo waxa aad raadinaysaa siyaasi qiyaano badan yaqaan sida wax loo lugooyo dadka loo isticmaalo la isaga horkeeno loo kala diro been loogu sheego oo nasiib xumo walow aanad wax aqoon ah siyaasadda iyo waliba wax kalaba aadan u lahayn misna kaas ayaad siyaasi u taqaanaa siyaasadna sida ayaad u fahamsan tahay oo adiga oo afka ka ubrinaya ayaad fadhi ku dirirka ka tiraahdaa adeer siyaasaddu waa qiyaano siyaasadda xeeladii kama marna balse waa inay xeeladaasi salka ku ujeed wanaagsan oo ay dan guud umadi ugu jirto isla markaana ay tahay mid daaran midnimada iyo samaha ummadda weli ma maqashay in 11 Abriil 2019 uu wasiirka Olombikada Japan oo raaligelin qalbi ah bixiyay isla markaana iscasilay maxuu uu sameeyay malaha dad buu laayay maye maxkamad baa musuq ku heshay malaha waaqa inul wadan maye beeshiisa ayaan hubaysneen waxaas oo dhan ma aha wuxuu kaliya soo daahay 3 daqiiqadood bishii October 2011 warqaadka Afton Ballad ayaa daabacay sheeko keentay inuu iscasilo hogaankii xisbiga Social Democratska oo ah midka ugu weyn Sweden 21 January 2012 muxuu sameeyay wuxuu lacag aad u yar oo lagu kabo kirada guryaha ka qaatay qasnada caymiska dadweynaha tiyo ay jirto inuu baarlamaanku wada bixiyay kirada gurigiisa Stockholm wuxuu kale oo wargeys ku kashifay inuu guriga qof kale la deganaa tan iyo June 2009 taasoo ka dhigan in isaga ay ku waajibtay kala bar kirada gurigu waa laba tusaale oo yaryar oo ka dhacay laba dal oo aysan dadku xitaa diin bahaysan oo ay u badan yihiin mulxidiin balse aan laga aqoonin dhaqanka ah siyaasaddu waa qiyaano siyaasaddu waa danaysi
siyaasaddu waa dhaca xoolaha danyarta, siyaasaddu waa nin jeclaysi iyo nin tooxsi iyo wixii la mid ah. maqaal lagu qoray foreign policy waxaa lagu sharaxay waxa ay siyaasadi tahay, waxaana far waaweyn lagu caddeeyey inay siyaasaddu tahay hogaamin, xeer jajab, adeeg bixin, diirad saaridda barwaaqa sooranka danyarta, ilaalinta danaha qaranka, ilaalinta xeerka dadweynaha iyo qandaraaska bulshada, inay tahay qorsheen, fulin, daacadnimo iyo isla xisaabtan. maadaama uu mawduucani bar yahay sidaasi uga fogaamayno, balse si aanu dareenkaagu u kala jiidmin, bal ku dulfekir dhacdooyinkii aan soo sheegay oo ah kuwa aan mala awaal ahayn balse horteenna ka dhacay. isu eg farqiga u dhexeeya Japan, Sweden iyo Soomaaliya. labada dal waxa ay malaayiin ugu deeqaan Soomaaliya oo iyada oo ku faraxsan gacan hoorsiga 60 sano oo ceebaysan jirta, maadaama 60 sano ay ahayd waxa qura ee lagu xisaabtamo waa kaalmada dibadeed. balse haddii ay lacala Sacuudiga shidaal ugu deeqaan dowladda Soomaaliya ay keed shidaal lagu shubo, marka gawaarida la siiyo waxaa dhacaysa in inta meel geeysa gaariga lagu baakimo shidaalkii deeqdaha laga daadsado ee suuqa madow loo iibgeeyo. u fiirso siyaasiyiinta maamul goboleedyada oo aan aalaaba daacad u ahayn qaran walaa qabiil, marka qura ay qayliyaan waa marka ay ka hadlayaan waxa ay u yaqaanaan deeqda caalamiga ah. waxaad maqlaysaa isagoo leh adeer deeqda qaybteeda cidna u daba fariisan maayo, qaybtaade yaa ku siiyey, goorma ayaad shaqaysatay, yaa dalka ku siinaya ku xukumay inuu deeq ku siiyo, haddii deeq lagu siiyase aayahaaga ma u madax bannaan tahay, horumarse abad ma lagu sameeyey deeq caalami ah oo ciiriinka lagu qaybsanayo. yay kula noqonin in aan mawduucii ka baxay, balse 60kaas sano waxaynu doonaynaa inaynu xadno lacag uu tashiilay wasiir Jabanees ah amaba Swedish ah oon isaga loo ogoleen inuu kafey ka cabo shilin aan la isla ogeyn, sidii dhacday 2010 oo wafdi Swedish ah oo Faransiiska tagay lagu qabsaday lacaga yaryar oo ay hoteella ku isticmaaleen. weliba siyaasigeennu waxa uu doonayaa inuu inta shaarim nooc kala ah samaysto uu ku kibro shilimaadkii dawarsiga ahaa oo uu sida bahdilan ku soo yaboosaday. haddaan soo xooriyo waxaas oo dhan waxaa noo dhashay aragtida ah adeer siyaasaddu waa khiyaano, waayo siyaasi aad qaa'inimo ugu codaysay shilin ku soo gaari maysid, wixii loo dhiibana waa dheri dabada ka daloola oo daafi lagu shubay. dalalka uu xisaabtanka dhabtahi ka jiro ee aan laga aaminsanayn siyaasaddu waa khiyaano ayaa intaa iska hoorinaya siyaasiga ka wiran mid ay dalkiisuba caqli xumo inta ay ka gaareen ay dhacooda ku dhiirigelinayaan. nacasow adiguna nasiibka waa tahay. bal markaana wasaaradda dibadeedka Kenya ayaa ogolaatay soo jeedin ka timid dowladda federaalka Soomaaliya oo ku saabsan in ay dowladda Kenya oo qura ay kala hadlayso arrimaha jaadka, iyadoo horay dhagahaba ay uga furaysatay wafdi ka socday jamciyadda jaadleyda iyo weliba wakaaladda cuntada iyo beeraha Kenya. joojinta jaadka oo ay Kenya maalintii ay ka hesho 100 milyan oo shilinka Kenya ah ayaa dhibaato dhaqaale u geysatay Kenyan badan sida ninkani uu sheegayo. handaraabka cudurka corona ka hor waxaan bil kasta 3 milyan oo shilin aan ka heli jiray jaadka, balse hadda waxba ma helo. shaqaalihii ii shaqaynayana waa Bagamondo ayuu yidhi Moses Lechora oo beer jaad ah ku leh Kaboto oo ku taala Igamba Central. maamulaha AFA Ani Inyaga ayaa Business Daily u sheegay in arrinta ay la xali doonto waxda xiriirada dibadda iyo ganacsiga ku qaybsan ee wasaaradda dibadeedka Kenya. waxaa arrintani loo mari doonaa wasaaradda arrimaha dibadda ayay tiri Marwan Inyaga oo daba socotay dalabka dowladda federaalka Soomaaliya oo ah in ay kaliya dowladda la sheekaysanayso. waxaa Soomaaliya tegay wafdi ka socda wakaaladda cuntada iyo beeraha Kenya, balse waxba lagama dhagaysan waqtigaasi ayuu yidhi sarkaal sare oo ka tirsan AFA oo isqariyay. dowladda Soomaaliya oo 3 Agoosto dib u furtay duulimaadyada caalamiga ah ayaa iska diiday inay jaadka fasaxdo walow ay wasiirada qaar sidaas ay doonayeen, waana maangal tilaabada dowladda federaalka maadaama ay Nairobi Soomaaliya ku dartay liiska dalalka aan u safri karin Kenya. waa tahay dhinaca kale tana taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA General Cabdalla ayaa maalmo ka hor ka digay qaraxyo ka dhaca magaalada Muqdisho isagoona u sababeeyay khilaaf soo kala dhex galay hogaanka ururka argagixisada iyo xubno la shaqaysta ee ku jira dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo salka ku haya
qaybsiga canshuurta laga qaado shacabka muqdisho. kooxda shabaab ayaa weerar isugu jira qarax iyo toos ku qaaday hotel elite oo ka mid ah hoteelada ku yaala xeebta liida ee muqdisho, waxaana weerarkan ku naf waayey 16 ruux sida uu sheegay afhayeenka booliiska Soomaaliya. waata dhinaca kaleetana magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay kulan xasaasi ah oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka mid ah xukuumaddii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, si hayaasha xilalka wasiirnimo ee dawladda oo wax laga weydiiyey xaaladda dalka iyo waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii ay qabteen xilalka dawladda ayaa ka warbixiyey arrimo badan oo ay ka mid yihiin saameynta uu ku yeeshay dalka Soomaaliya cudurka corona oo ay dad badani ugu dhinteen gudaha Soomaaliya. wasiirada kulankan ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed, wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Xuseen Maxamed Sheekh, iyo wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Cabdullaahi Bidhaan iyo xubno kale oo ka mid ah dawladda. waata bal markaana hogaamiyaha Puntland Siciid Dani oo dib ugu salaabtay gudaha Soomaaliya ayaa shaaciyey war-saxaafadeed ka kooban 3 bog oo looga hadlay arrimaha shirka Dhuusamareeb iyo mowqifka xukuumaddiisa xilli laga sugayo inuu ka qayb galo ka hor 19 bishan oo ay ku cadaadinayaan wakiilada caalamiga ah. hogaamiyaha Puntland ayaa ku sheegay war-saxaafadeedka in ay Puntland doonayso in ay ka hor shirka la magacaabo wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka si loo fuliyo heshiisyada shirkaasi lagu gaari doono. Puntland waxa ay kaloo sheegtay in ay doonayso in la meel mariyo dalabkeeda ah in wakiilada caalamiga ay yeelan doonaan damaanad qaadka shirka ayna doonayaan in meelmar laga dhigo arrimaha muhiimka ee waqtigan. waata dhinaca kaleetana hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ka hadlay weerarkii kooxda shabaab ay ku qaaday hotelka Elite oo ku yaala xeebta liida ee magaalada Muqdisho, isagoona ka tacsiyeeyey dadkii ku dhintay weerarka, waxaana uu alle uga baryey inuu caafiyo intii ku dhaawacantay. qoraal lagu baahiyey barta Facebooka ee hogaamiye Axmed Madoobe ayaa lagu sheegay inuu hogaamiyuhu la qaybsanayo shacabka Soomaaliyeed, ehelka iyo qoysaska dadkii ku waxyeeloobay weerarka oo ahaa mid wuxuusnimo ah oo ay doonayaan inay dadka ku cabsi geliyaan argagixisadu. waata waxa aynu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey ee wararka kala gedisan ee aad kala socotaan waddanka TV. bal iminkana dowladda Mareykanka ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u gudbisay qaraar ay ku dalbanaysay in la sii dheereeyo muddada cunaqabataynta hubka ee saaran dawladda Iiraan. hase ahaatee Mareykanka ayaana guuldarro weyn kala kulmay soo jeedintiisa. golaha ammaanka oo cod u qaaday dalabka dawladda Mareykanka ayaa fashil ku soo dhammaaday kadib markii dheeraynta cunaqabataynta Iiraan kaliya taageereen Mareykanka iyo Jamhuuriyadda Dominika. dawladaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa ka soo horjeestay in la sii dheereeyo cunaqabataynta hubka ee saaran Iiraan, waxaana sidoo kale ka aamusay soo jeedinta Mareykanka 11 dal oo ay ku jiraan wadamada Jarmalka, Ingiriiska iyo Faransiiska. cunaqabataynta hubka ee saaran Iiraan ayaa ku eg bisha Oktoobar sida ku xusan heshiis ay gaareen sanadkii 2015 dawladda Iiraan iyo quwadaha waaweyn ee caalamka ay ugu horeeyaan reer galbeedka. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in Mareykanka jab uu kala kulmay soo jeedintiisii Iiraan ee ka dhanka ahayd. waxa uuna sheegay in Mareykanka uu ku horceeboobay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. dawladda Mareykanka ayaana si weyn uga carootay fashilinta qaraarkooda. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaana sheegay in dambi aan cafis lahayn yahay in golaha ammaanka uu ka baaqsado go'aan ay ku difaacayaan nabadgelyada dunida. ugu dambeynna shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa heshiis ku saabsan cilmi baaridda cudurka corona la saxiixatay shirkad laga leeyahay Israa'iil. heshiiskan ayaa dhex maray shirkadda samaysa cilmi baaridda oo lagu magacaabo Terra Group oo fadhigeedu yahay Tel Aviv iyo shirkadda Imaaraadka ee Abacus. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Imaaraadka ayaa sheegtay in shirkadda Abacus ee la saxiixday heshiis istiraatiijiyeed oo ganacsi shirkadda Terra Group. bayaanka ayaa lagu sheegay in labada shirkadood ay iska kaashan doonaan cilmi baarid la xiriirta cudurka faraha ba'an dunida ku haya ee corona. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warka waddanka TV. inta aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxa in kaga tagaynaa guul iyo gobonimo.